بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا وحن سلام يا تنوينا الشرف تبضن مرتدى نوي مدى نصوب بغضي حفلتنا يرسو قيب قلي ميلا دادير نوغي يمد iyo dadka shoraygu joogay reer caymeed ee sharafta badan baan salaamayaa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan waxaan u mahad celinayaa dadka sharafta badan isimada madaxda kale cuqaasha ningarboodka gabdhaha noo yimid ee shirkan nagala soo qayb galay ee waqtiga badan na soo geliyey aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa mahad weyn baan idin celinayaa waad mahadsantihiin waxaan leenahay soo dhowaada mar labaad waxaan u mahad celinayaa dadweynaha reer caymeed ee hawshan tirada badan soo qabtay ee 5 bilood ka soo shaqaynayay ee magacyada kala duwan leh ee guddiga qabanqaabadu kow ka tahay guddiyada ay sameeyeen ee kale ee dhalinyarada iyo hablaha iyo noocyada badan isugu jirta ay ku jiraan ciidanka nabadgelyada ilaalinaya uu ku jiro dadweynaha reer caymeed aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa mahad weyn baan idin celinayaa waa mahadsantihiin waa midaysantihiin waad sharfantihiin waad qiimaysantihiin baan idin leeyahay intaa kadib mar labaad waxaan u mahad celinayaa dadka noo yimid ee wakhtigana soo geliyey ee waddankoodii ka yimid aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ba idinku mahad celinayaa intaa kadib waadna wacdideen ilaahay ha nagu anfaco waad nala taliseen taladiinnii waa qaadannay waad noo ducayseen ducadii ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin aqbalo idinkana ilaahay ha idin barakeeyo ilaahay danihiinna ha uruuriyo intaa kadib waxaan leeyahay isimo odayaal insha allahu tacaalaa waan idinla shaqaynayaa khayrkii iyo wanaagga aad ka shaqaysaan baan idinku imanayaa saasaad igaga talagelaysaan wixii wanaaga waan idinkala shaqaynayaa garabkiinaan taagnahay garabkiinnana waan doonayaa waa u baahanahay saaad u ballan qaadeen intaa kadib waxaan leeyahay beesha mas-uuliyaddan ii dhiibtay mas-uuliyaddani saartay iyo beelaha ay isku danta yihiin ee danta dhowi ka dhaxayso xilkan aad i saarteen marka hore waa idiin ilaalinayaa insha allahu tacaala marka labaadna waa idiin shaqaynayaa waxaan idinku shaqaynayaa wixii aad ii idmateen dhaqan baad ii idmateen ha ilaawina xusuusnaada xilka aniga aad ii idmateen waa dhaqankaasaad iga sugtaan wixii kale idinka dayacan ciddii aad u idmataan baa idinku maqan sidaasaad insha allahu tacaala u ogaanaysaan waa idiin shaqaynayaa sidii raggii iga horreeyey idinku shaqaynaya baan idinku shaqaynayaa haddii aan gaadhsiin waayana insha allahu tacaala waa ku dhawaynayaa saasaad igaga talagelaysaan insha allahu tacaala intaa kadib idinka ilaahay subxaanahu wa tacaala baa waxau idinku ilhaamiyey in aad tihiin dad odayaashooda ka dambeeya idinla ballami maayo waa la idin yaqaanaa odayaashiina inaad ixtiraamtaan waa la idin yaqaanaa inaad ku qiimaysantihiin waa la idin yaqaanaa inaad hadalkooda maqashaan waa la idin yaqaanaa idinla ballami maayo oo waad ballansan tihiin beesha iyo beelaha ay isku danta yihiinna sidaasaan leeyahay intaa kadib haddii aan isku dayo inaan taliyo waxaan ku talinayaa hadalladii qiimaha badnaa ee halkan laga soo jeediyey ee qofkii ku baraarugsan wax badan ka bedelayey ee waxgaradka meelaha badan isaga yimid soo jeediyeen aan qaadanno haddaad yar tahay
iyo haddaad weyn tahay iyo haddaad nin tahay iyo haddaad gabarh tahayba talooyinkii qiimaha badnaa lama helo ee isu soo uruuray ee meelaha badan ka yimid waxaan idinkula talinayaa inaad dib u fiirisaan ood xusuustiina ku soo celisaan oo aad qaadataan waxaan ku darayaa haddaynu nahay dadka Soomaaliyeed meel kastoo aynu joogno waa burbursannahay waa khilaaf badannahay waa isqabsi badannahay aan isu tanaasulno aan gacmaha isqabsanno aan khayrka u midowno aan sharka ka midowno sidaasaan leeyahay khayrka aynu u midowno sharkana aynu ku midowno aan isu tanaasulno yaan madaxnimada la isku qabsanin meel kasta dad baa madaxnimo isku haysta ama dhaqan ha noqdeen ama khayrkii ha noqdeen ama mid siyaasadeed ha noqdeen wix ciddii markaa xil qabata ha la taageero dadka xilalka haya ee xilalka siyaasadda haya ha la taageero dadka kuwa dhaqanka haya ha la taageero xilka ha loo kala dambeeya yaan la isku qabsanin sidaasaan dadka Soomaaliyeed kula talinayaa gaar ahaan waxaan leeyahay nabad aan ku wada noolaano meel kasta oo la joogo qofkii nabad darro ka shaqaynayo qofkii qori sitee xabad ugu jirto qof kale oo walaalka ah inaad ku rido wax macno ay ku sameynaysaa ma jirto xabadda qoriga ka saar qof walaalka ah waxba ha yeelin qof walaalka ah ha dilin qof walaalka ah wadada ha u gelin aan isnabad gelino nabad aan ku wada noolaano Soomaali weyn meel kasta oo joogto dadka af Soomaaliga ku hadla waxaan ugu baaqayaa nabad baan ugu baaqayaa inta kadib beeshan dhulbahante waxaan leeyahay meelaha shaqaaqooyinku ka jiraan ee dadka walaalaha wax kala gaadheen dadka ay wax kala gaadheenow waxaan leeyahay wixii dhici lahaa way dhaceen qof dhintay lama soo noolaynayo aan heshiino aynu nabad ka dambaysiino wixiina gaadhay aan ka wada hadalno colaadda aan joojino gaar ahaan waxaan leeyahay Taleex degmada Taleex shaqaaqo muddo socotay baa ka jirta dadka ay kala gaadhay waa jifi hoose waxaan ugu baaqayaa degmada Taleex dadka ku wada nool ee walaalaha ah walorta waxaad xisaabisaan inta aad kala tirsataan inta horta aad kala tirsataan balorta marka hore xisaabiya oo caqligiinu ha shaqeeyo waxaan leeyahay colaad kuma wada noolaan kartaan Taleex dad walaala aad tihiin dad isku dhowaad tihiin jifi hoosaad baad tihiin idinkoo kale ma coloobi karaan guri gudihii baad ku wada nooshihiin waxaan leenahay heshiiya waxaan leenahay joojiya colaadda waxaan leeyahay dadka idinku dhex jira maqla waxaan leeyahay wixii dhacay waa dhaceen ilaahay baa iraadeeyey shaydaan baa shaqeeyey walaalayaalow reer Taleexow wax ka dambeeya ha naga nixinina waxaa hore ee dhacay wax ka dambeeya ayaysan dhicin gacmihiina laaba nabad baanu doonaynaa inaad heshiisaan baanu doonaynaa inaad wada hadashaan baanu doonaynaa inaanu idinla qaybsanaanu doonaynaa dhibka walaalayaalow heshiiya reer Taleexna sidaasaan leeyahay guud ahaan waxaan leeyahay beesha dhulbahante isimadeedu hay isu yimaadeen ha tashadeen maslaxadda ha ka taliyeen cuqaashu ha isu timaado gacmaha aan isqabsanno danteenna aynu u midowno gudaheenna aynu ka heshiino derisyada aynu la heshiino gacmaha aynu isqabsanno aynu midowno midnimaynu wax ku qaban karaynaa tafaraar waxba ina tari maayo isu soo dhowaano saasaan leeyahay beelweynta dhulbahante waxaan leeyahay derisyada shaqaaqooyin baa ka jira derisyada waxaan leeyahay dhibteenna aan ka dayno waxba yaynaan yeelin aynu nabadgelinno iyagana nabadgelyo aan ka dalabno sidaasaan leeyahay beeshan iyo deegaankan dadka ku nool dadka kale derisyadana waxaan leeyahay idina walaalayaalowna nabadgeliya nabad aynu ku wada noolaano saasaan leeyahay gaar ahaan dadka hadda xoogaha aan isu gelin ee maaragtay xoogaha kala faaganaya ee colaaddu ay dhex martay
dhinacaana waxba way jiraan inkastoo ay fiican tahay runtii dhinacanna way jiraan waxaan leeyahay wixii caqabad ku ah ee dadka iska hor keenaya ee ka shaqaynaya dadka walaalaha inay iska hor keenaan waxay magacay doonaanba ha lahaadeene dhibaatada dadka ha ka daayeen dadku waa dad isku dana waa dad walaala ah waa dad heshiin doona insha allahu tacaala waxaan leeyahay wixii dhib ku haya ee nabadgelyo darre ka shaqaynaya gacmaha ha laabteen oo dhibaatada ha joojiyeen beelaha waxaan ugu baaqayaa shaqaaqadu ka dhex jirto waxyaalaha nabadda caqabadda ku ah ee qodxaha jira ee nabaddu la-aantood aanay soconaynin waxa laga qabto qodxaha nabadda hortaagan ha la guro saasaan leeyahay qodxaha nabadda hortaagan nabadda waxyaalo hortaagan baa jiri karaya wax allaale iyo wixii nabadda hortaagan ha la bixiyo ha la soo dhoweeyo ha la saaro qodxaha markii la saarana insha allahu tacaala xilli aan fogayn insha allahu tacaala ha laysaga yimaado ha laga wada hadlo nabad shacab oo siyaasad xor ka ah aan ka wada hadalno aan ka tashanno aynu heshiino yaan go' laysu hulaabanin si cad oo waadixa oo nabad shacaba baan ku baaqayaa aniguna insha allahu tacaala gacan baan ka geysanayaa waa u taagnahay qolkay iyo dadka aan odayga u ahayna waxaan ugu baaqayaa nabad aan qodax lahayn aan hulaab lahayn aan siyaasadi ku jirin walaalaha shacabka u dhaxaysa aan maaragtay laysu soo galgalan aan geed laysu soo gelin inaynu ka shaqayno oo danteenna iyo danta derisadeenna iyo dhammaanteen danteenna ku jirto sidaasaan insha allahu tacaala ugu baaqayaa waxaan leeyahay midnimo ilaahay ha ina mideeyo intaa kadib waxaan ku ducaynayaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu dembigeenna dhaafo dembiga waalidkeenna dhaafo khaatumada ilaahay khayr oo noogu khatimo ilaahay subxaana wa tacaala raalli inaga noqdo ilaahay saasaan weydiinayaa ilaahay qalbigeenna mideeyo ilaahay diinta xaqa inugu mideeyo ilaahay kitaabkiisa inugu mideeyo ilaahay saasaan weydiinayaa waxaa dad badan baa nala soo hadlay oo duca doonaya wax allaale ma magacaabi karno dalkana waa joogaan dabaddana waa joogaan dadkaa ducadna yidhi ha lanoo duceeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan u weydiinayaa meeshii ay ka bukaan ba ilahay inuu ka bogsiiyo meeshii ay ka bukaan ba ilahay inuu ka bogsiiyo qof walba muraadkiisa ilaahay gacanta inuu ka geliyo ilaahu qof walba muraadkiisa gacanta ka geli reer qabiila oo raasa oo reer buuhoodla baa yidhi noo ducee ilaahay subxaana wa tacaala yaa raaskaa waxaan leeyahay wax allaale waxaad doonaysaan ilaahay haydin siiyo ilaahay muwaafaqo haydin siiyo ilaahay wax khayr la haydin siiyo ilaahay taya haydin siiyo ilaahay taran haydin siiyo ilaahay haydin mideeyo dhammaanteenna allahayna mideeyo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu